Assalaamu calaykum. Lixda talo ee maanta. Halkan waxaan kugula wadaagi doonaa 6 talo oo aan u arko inay muhiim u tahay noloshaada. Haddii aad noloshaada ku dabaqdana ay kuu fududaan doonaan fulinta ama inaad wanaajiso xidhiidhada idin dhexeeya adiga iyo dadka kale. 1. Ha dhayalsanin inaad ka farxiso qof kale. Waayo ereyga wanaagsan ama halka dollar aad siisaa waxa macquul ah inuu badbaadiyo noloshiisa oo idil. 2. Ha ku dheelleelin hana ku ciyaarin qof u baahan taageeradaada. Waayo isagu kuguma iman adiga inaad ku ciyaarto oo aad ku dheelleesho ee wuxuu kugu yimid inaad taageerto oo aad garab istaagto. 3. Weligaa ha saluugin hana dhayalsanin dadka kaa aqoon muuqaal iyo dhaqaale hooseeya. Waayo qof kasta wuxuu ku qurux badan yahay sida uu Ilaahay u abuuray. Sidoo kale adigu waxaad ku qurux badan tahay siduu Ilaahay kuu abuuray. 4. Weligaa ha ka degdegin hana u samir darnaanin waxyaabaha jeceshahay. Waayo hawlaha soo habsaamaa waa kuwa ka taga raad weligiisii jira. 5. Weligaa iska ilaali nooc kasta oo dulmi ama xadgudub ah. Haddii aad iska ilaaliso waxaad dareemi doontaa xasilooni iyo inkirid la'aan. Marka aad adigu dadka jeclaato ayay dadkuna adiga ku jeclaan doonaan. Sidoo kale marka aad adigu noqoto qofka ugu wanaagsan ayay xidhiidhadaaduna noqon doonaan sida ugu wanaagsan ama kuwa ugu wanaagsan. Ha hilmaamin inay sidoo kale tahay awood aad u xooggan inaad aqoonsato awoodaha dadka kale. Ugu dambayn, ka farxi maanta qof miskiin ah, ku dheh erey wanaagsan, sii dhaqaale ama wax kastoo aad awoodo. Waayo waxaad u sahli doontaa inuu si fudud maanta u dabaaldego oo uu farxo, dareemana inuu haysto dad aad u wanaagsan oo adiga oo kale ah. Ha hilmaamin sidoo kale inaad la wadaagto muuqaalkan asxaabtaada si ay fariintani u gaadho meel aad u durugsan. Aad baad u mahadsantahay.